xaaskii uu ka tegay iyo xubno kale oo ka mida qoyskiisa ayaa la socday diyaaradda soo qaada marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan oo markii garoonka ay soo gaareen ay tacsiiyeen madaxda qaranka iyo mas-uuliyiintii kale ee garoonka joogay salaada janaasada ayaa marxuum cabdiraxmaan yariisow allah u naxariistay lagula tukaday garoonka diyaaradaha waxaana lagu aasay dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kaahiye Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa muujiyay inaan la ilaabi doonin saaxiibtinimada iyo howlkarnimadii Allah u naxariistay injineer Yariisow qof aad iyo aad sharaf u leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka lagu sheegi jiray dhamaantiin leh buu ahaa waxaan Ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su'aasha u fududeeyo jannatul firdawsna geeyo cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa wuxuu waqti badan iyo tacab badan begeliyay in dawladnimo iyo nabad iyo deganaansho dalkiisa ka islaaxaan magaaladiisa ka islaaxaan xamar uu guntaday naftiisu u huray aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyay wixii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto taa marxaati baynu ka wada ahayn waa uga marakacaynaa waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay ilaahay sabir iyo iimaan hay naga siiyo inteena kale oo ummadda Soomaaliyeed ah mas'uuliyiinta ah dawlad iyo shicibba waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayay aan si laban laabnaa suurto gelinaa in aynu dalkeena ka asaasno nabad islaaxda magaalada xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka asaasno qof walba Soomaaliyeedba ku noolaan karayo niyadda iyo nabdigaba siin karaayo madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku baaqay in 3 maalin kadib la sameeyo munaasabad baroor diiqa oo ay ka qayb galayaan madaxda qaranka iyo bulshada sida uu mar kale sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxa jiri doonto oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in 3 cisho kadib baroor diiq qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha ra'iisul wasaaraha asxaabta ehelka qaraabada laga oran doono xafladaas hadii Ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay Ilaahay walaalkeen ha u naxariisto waxa inooga aadan oo kaliya in aynu u ducayno waxa kale oo doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto inaynu cafino dhamaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay haduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu cafino aynu is cafino Ilaahay aynu u barino inuu u naxariisto innagana markaan miiqaamkiisa gaadhno Ilaahay inooga daba naxariisto gudoomiyihii iyo duqii gobolka Banaadir Allah u naxariistay marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow oo shaqooyin kala duwan u soo qabtay dalka waxa muddo sanad iyo barah oo uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo wax badan ku soo kordhiyay dib u dhiska iyo bilicda caasimadda iyadoo si gaar ah loogu xasuusan doono dib u soo celinta guryo si sharci darro ah looga haystay muwaadiniin Soomaaliyeed Muhidiin Macallin Cabdulla warbaahinta qaranka Iskool Buluusiya